حتى قفك بلادك يعني كان كانوا بيا باستل سيلكو كرياسة نقضي كانوا عانا ولا قصي كانوا سوق كانوا 10 كانوا 10 دول سيد بدري كان حوالي بارك الكريم سولو كاسو بورش كي وصلنا قوي ما يحمد وحبونه قيبنا كاسي وعانو كان هو 10 كان وعاني وصلنا كان هو السوق كان هو بيع عادي هو اللي سيرين باستان كريم وبيع بصنا قوي كان شرابها كان هو بيع يسقونه 10 هو 10 علماء هذا الطفل كان باندي وبيها هذا الطفل هذا غشوا هذا جسمه ولا شو بالفر وعاد dhacdo kasta oo argagax badan oo ka dhaca dunida guudkeeda waxa lagu tusayaa ummadda ku nool dunida guudkeeda inay ku cibra qaataan dhacdadani argagaxa badan ee mucjisada ay ku habsatay qoys ku nool xaafadda Oktoobar ee magaalada Burco dhacdadani ku habsatay qoyskani ayaa ah mid biyaha iyo cuntada yaala gurigaas ay isu bedelayaan biyo karaya oo muuqaal eeg biyaha saamunta leh cuntaduna ay isku bedelayso midaba ka turjumaya inay xumaadeen oo aanay quudan karin qoyskani ay ku habsatay dhacdadani cibra qaadashada aanu booqanay saaka ayaanu kula kulannay dadyo tiro badan oo ka kala yimid xaafadaha magaalada Burco oo soo daawasho tagay dhacdada naxdintani badan hooyo kamid ah qoyskani ay dhacdadani ku habsatay oo warfideenka u warantay ayaa ka warantay sida ay wax u dhaceen saddex casho laakiin 2 bilood hooyaday bay biyuhu wax loogu dareeyay marka cuntada waan qubaynay markasta manaan soo bandhigin saddex casho ayaa markaas aan loogu dhigayay ilaa iyo shalay iyo daraad markii aan adkeysan kari weynay bahanti biyaana looga dhacay dhergi dabkana looga dhacay ee laxooxdina looga dhacay ee shaahina looga dhacay ayaan culimada warqad qoranay dabadna masaajidadaan u bandhignay ilaahay baan ka baryeynaa in ilaahay naga saaro oo insha Allah ilaahay ka bogs meena looga yimin hadda anagu waxa la leeyahay amalo aan u garanaynaa ma jirto marxumadii guriga lahayd way dhimatay 2 bilood bil iyo 15 casho ana ku noolaa iyo ayay hooyada iyo ciidan kale walaashay baa soo guurtay markay soo guurtay isla iyo markii aniguna waxaan la intaana cuntada saasay noqotay iyaguna way insanayeen markay soo guurtay ayay aragtay way yidhi marka nuu hayeenayna saasay cuntada noqotay boorashkan karnaa way isbedelay caanaha noqoshna way isbedelaya shaahna karnaa way isbedelaya bariiskan karnaa way isbedelaya siiba hooyada bay haysatay mujtamacuna wuxuu dhamaaday saddex kan oo dhamaaday annaga marka saaka ayaan warqad qornay culimadana ku binay wax kale aan ku eerno waa qada kala xaafadan maanta qada ku soo qabsanay sida markii loo soo dhigay ayaa hooyaday laga gaarsiiyay loo tabaatana saasay noqonayaan qadada xaafad kale loogu soo karay guriga saaka quraacdi baan dibnay qofna ma kadban qadana kuma karsan cashana kuma karsan sidii baan u taaganay hudaalina noo carnimo iyo meel kale sidoo kale waxa dhacdadan inooga waramay qaar kamid ah dadka dariska iyagu booqday gurigani waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan waxa ka dhacay anigu shalay baan imi waxaan imi ilaa 12 baan imi qisadaas anigu dadku dhowr nooc buu sheegayaa qisadu dadkaas sheegaya waxa weeye mid dhiiga iyo mid haantu ay saas u labarogayso xumba karinayso marka sidaa daraadeed anigu taa dhiiga maan arag taan arkay waxay tahay biyaha saasuu la barugaya sababay horta marka hore wax kasto dhaca ilaahay baa inaga og wax kasto dhaca ilaahay baa inaga og marka anigu waxaan u maleeyay in waxaan wax yihiin qadartu ama sahe wax guriga lagu sameeyay markaan kaaga warramo islaantii guriga ku jiri jirtay ee dhimatay biliga 20 cashay sii mootanayd waxaan ma jirin waxaan wax jira markii hore ma ahayn waa wax ilaahay makaayamaha yimi waxaan meel ka yimaadeen ayuun baa waxaan leenahay waynu hubsanaynaa kuntaanu gaarnaa imkana waa baaraynaa quraankana waa lagu akhriyaa ilaahna waa loo bariyay waxa ilaahay reerka aynu isku soo wada duub oo dhacdadani ka dhacday xaafadda Oktoobar ee magaalada Burco ayaa dhacdo argagax badan oo wax lagu tusayo ummadda islaamka isla markaana u baahan in lagu cibra qaato Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad muqbaahiya caalamiga Somali News magaalada Burco